waxaan rabnaa shabaaba xagga qarxiye iyo xagga baabuur ku qarxiyeen iyo xagga qof isqarxiye galay iyo waxaas yaana idin goonin waxa waaye dagaalka shabaab maanta oo ku jira sicid intacaanihiisa waay sacd intacaanihiis gadaal ma ka soo badanayaan sicid intacaanihiis waa dagaalka iyo xabadda ee qaraxa maanta shabaab ay wadaan waxaan rabaa inaan ku baaqo anoo uga faa'iidaysanayo gogashaan nabadeed inaan nabad ku baaqo dhallinyaradeenna soomaaliyeed ee meeshaas tagtay duruuf kasta ha ku tagaan mid la khalday mid dhaqaale xumi u geysay mid caro kaloo walaalkiis u caraysnaa inta carooday u galay duruuf kasta ha tagto waxaan leenahay nin allaalaya ninkii ka soo noqdo cafi iyo saamax waaye cafi iyo saamax waaye uga simamayna waa dowladdu waa kaalmaynay sidoo nolol fiican u heli lahay xirfad u bara lahaa oo ku shaqaysto iyo meesha uu ka shaqaysan lahay intaba dowladda diyaar u tahay inay ku garab istaagto ku kaalmayso waana diyaar waxaan leenahay wiilasheenna ka soo laabta cadowga ka soo laabta habawga ka soo laabta meesha dhibka badanna iyo qaraxa iyo dhibka iyo muxuu bahdilka iyo tala aadan ku lahayn meeqa dhalinyaro qurqurxoona meeshaan maanta taagan oo u fadhido talada dadkan inay wax ku yeeshaan ay ra'yigooda ku cabirtaan adigana maxaa duurka iyo geedaha hoostooda la jirtaa dadkan saa u dili lahayd bal fikir caqligaaga aad ugu noqdo wiilasheenna waxaan leenahay soo noqda nabad ku soo noqda hooyo iyo aabbe iyo adeer iyo maxaan ku rahaa mas-uulkii shalay aad ka tagtay ayaa maantana ku rabo u soo noqo dowladaad haysataa ku garab istaagayso nolol fiican iyo mustaqbal fiican oo cibaado adduunyo iyo mid aakhiraba leh kugu saacidayso ayaa diyaar ku ah meesha ka soo noqon